السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا الطاود يا البرنامج قارة والله لأن محمد سليمان جامع وكم قاعد يقول يسمو وكم يدرنا اللي يردي ودك كتاري تيل لبصنا يبرك هو رأي مقدم وصو حري لعبتي ودك كودي محمد سليمان جامع وحن كور يسمونه مرحلة دي تهريب وخلاق المي نوح كل اللي يلو تهريبه يوحيابه بدن قدامين يسقع قلبي يسوى الله صاق المي هل كان عندنا دعوة يسوى channel kan ku leeyahay YouTube ka Khadar Xaaji barnaamijka waxa soo sheegay ugu martay Maxamed Salmaan Jaamac oo kamid ah dhalinyarada waddanka ku soo laabtay Maxamed Salmaan Jaamac ku soo dhaw barnaamijka waan ku dhaw walaal Khadar Xaaji Maxamed ugu horeyn hadii aan ku weydiiyay Maxamed Salmaan Jaamac kulligu dhalinyaradu way wada taariibeen laakiin oo badankoodu qaarna way gudbaan qaarna way soo qaarna in badan way soo laabteen bulooyinkan badan adiga Maxamed ahaan maxaa kugu dhaliyay inaad taariibto oo aad waddankaaga ka tagto walaal waxay u dhaliyay waxyaabo fara badan bay u dhaliyay magaalada Burco badan ma ku sugnaa amal la'aan iyo shaqo la'aan iyo waxyaabo duruufo badan oo noocaas ah ayay u dhaliyay marka sida darteed hamigayga wax iska jeclay inaan dhalinyarada markii hore qurbaha iska jeclay xagga iska niyeystay mar walba inaan ku noolaadaan ayaa mar walba hubigayga mar walba ma jeclay inaan yurto marka sida darteed baa igu dhaliyay inaan taariib wax iskaga ka abuurmayba marka inta badan waxa la yiraahdaa dhalinyarada taariibta waxa ku abuura qaar waa iska cudur caadi ah oo ku dhaca dadka oo ay dawadiisu inta ay Yurubun galo qaar sida la sheego waa qaar hawlkadiisii ku timaado ama si kaliisoo kale cudurkan uu ugu dhasho taariibe kuwa kale waxa la yiraahdaa iyagu waa qaar ku daydoona saxaabtooda ta Yurub u soo sawiraan iyagu markaas ku qanca waxyaabaha ay asxaabtoodu soo sawireen oo saa ku taariibay adiga ma waxa ka ahayd fikir ku dhashay mise fikir asxaabtaada kamid ah ay taariibay ku dhalayaan baa no ma walaal saamay ahayn fikir aniga iga soo gaay inaan taariibo bay ahayd hubbigeyguna waa sida hore aan kugu sheegay inaan dhalinyarta xagga tagto mar uun kamid noqdaan bay ahayd marka hubbigeyga jeclaystay inaan Yurub mar uun gaaro waad mahadsantahay Maxamed goormay kugu dhalatay saadii sheegtay muddo 2 sano iyo badh abaad imika xagga joogtay goormay kugu dhalatay fikirkan inaad taariibto no fikirkan walaal waxay u dhashay markaan dugsi hoose dhiganayay ayuu dhashay 2012 ayuu dhashay markaas waqtigan aad taariibtay ee aad tagtayna xilli ma waqtigan aad taariibna waxa ahaa ugu dambeyntii 2017 oo buura ayaan ka wada ka tagay maxamed qaabkee ayaad u bilowday safarkaaga inaad taariibto saadii sheegtay burcad joogtay markii hore aad ku sugnayd qaabkee xageeba safarka ka bilowday walaal waxaan ka bilaabay burcaan ka bilaabay boosaasan tagay halkaasaan boosad aan doon ka raacay Yemen baan tagay Yemen markaa intaydan Yemen iyo aydan gudbin oo boosaaso laftarkeeda aydan ka tagay isku xidhka dhalinyarada inta badan way taariibaan oo iyagu taga waxa jira isku xidh iyo magafayaal la yiraahdo Soomaalida dhexdeeda jirta sidee kugu suurtooday inaad boosaaso laftarkeeda aad tagto oo aad la xidhiidho asxaabta iyagu dadka sii gudbiyay si sahlan baan iyaga wala xiriiray waxaan la xiriiray nin jooga boosaaso oo mukhalisa oo doomale ayaan lambarkiisa leysiyay ninkaas anigu halkan Burco gobolka joogaan la xiriiray aan hawlaha uga sheegtaan ku ninka noocaas baan hay mishkaasaan doonaya ninkii baad ugu suurtageliyay inaan tago oo ninkii baa igu suurtageliyay inaan boosaaso ugu tago si wanaagsan ay soo qabanqaabiyay isla markaana degdeg baan u baxayba boosaasan tooso aad halkan imisa dhalinyarada kaga baxdeen oo gabdha iyo wiilal leh halkan waxaan kaga baxnay aniga iyo wiil kale baan kaga baxnay laba wiil baan kaga baxnay Burco aan kaga baxnay laakiin boosaaso laftirkeeda waxaad ugu tagteen dad kale oo idin mid ah oo sidii la doonayay in iyaguna waddanka ka tagaan oo taariibaan dad badan baan ugu tagnay oo dad Soomaali Oromo iyo intaba leh oo badan oo ajaanib ku jiro marka amarka le boosto wax dhibo kuma araginta aan jidka ku sii jirnay sin badan boosto tagnay ajaanibtaasaan u tagnay ninkaasna si wanaagsan buu noo soo dhaweeyay marka waxaan la xir noqonay oo xirtii Oromooyinka iyo taariibayaasha kale ee iyaguna gobolada kale yimid wadamada kale iyo dadka kala duwan yimaada halka marka la isku aruriyo way tagaan halka waxa ka bilaabmaya safarkaaga halkii ugu horeysay marka laga yimaado inaad Burco ka gaashaamtay oo ka sii baxday sax balqaabka safarkii ayaad u sii gasheen oo badii ugu horeysay inaad sii gashaan boosaaso ka tagtaan hadhow toolaada Yemen u sii gudbayseen bal safarka laftarkiisa ka waran maxaad raacdeen in mise qof baad ku raacdeen walaal waxaan markii hore waxaan raacnay doon baan raacnay waxaan dad ahayn 100 qof ayaan doon raacnay Soomaali waxaan ahayn ilaa adigu Soomaali ilaa 12 qof 13 ruux meelahaas aan inta kale waxay u badnaayeen Oromo iyo Ethiopian bay badnaayeen doontana waxaan raacnay habeenimo baan raacnay
doonta habeennimaad raadeen oo habeennimaada la baxday haa abbaaro ilaa xilliga abbaar waxay la baxday 8 duhurnimo 8 fiidnimo safarkaasi waqti intee lag mid ku qaatay u dhaxeeyay Boosaaso ilaa Yaman aad u socdaasheen waxaan u dhaxeeyay ilaa 19 saacadood mid ku jira 19 saacadood markaas wax jicsina maydaan qaadan mise waa siiyay wax jicsina jicsin waxaan sidinay waxoogaa yaroo timira iyo waxoogaa yaroo biyo intaasaan biyo baad aan sidinay waxoogaa timirta iyo biyahaas ma sidinay wiilkii aad burcad laftarkiisa iska raaceen ilaa Yaman waa wada socoteen safarkaas ilaa Yaman waa wada socon maxamed bal adoo ka sheekaynaya waxaas aad kala kulantay markaad Liibiya tagtay markaad tagtay Yaman baan leeyahay Yaman qaabkii aad kula kulantay magafayaal kala u tagaysaa dad iyagu afgaar oo kala ku hadlabaad u tagaysaa bal iyaga laftarkooda ka warbix لو horta carabtu sida aan carabtu dhamaantood horta isku si maaha laakiin nimanka iyaga Yamanidu horta carabta kale way ka sinabsan baansi oo ka sii xaq jiraan waayo way ka naxariis badan yihiin oo way ka dulqaad badan yihiin laga yaabo haddii aad maagtaan soo dhanka Yamaniga oo ka tago laakiin ninka Liibiyan ay Suudigan aanu ka tagin lafaaga wax ku yeelay Yaman markaan tagnay wax dhibaato kale ma kulmin meeshii ugu horeysay aan istaago xeebta markaan ka soo degay may facaan istaagnay qolay Yamaniya baan noo wareegtay qoladii Yamaniya markaan la wareegtay may facbay makiina geeyeen soo wanaagsan bay noo martooreen casho bay nasiiyeen guryo bay natiijiyeen markaa inamka alle horta Yaman wax dhibaato aan kala kulmay in yar oo iska rafaado gaarigu nala yara dhacay mooyaane inta kale laagsa wax dhiba Yaman kuma arag gaariga la dhacay laftarkiisa ma cid wax ku noqotay wiilba ku yara dhaawacmay gacanta garabka bidix wax in yar wax juuga ka soo gaadhay laakiin cid kale wax kuma noqon gaariga markaas magafayaasha Yaman waxay la wareegeen dhamaantiin idinkoo ilaa xabashidiin ilaa urumadiini mise Soomaalidu idinku waxa u tagteen magafayaal kale oo gaar may sida ogtahay Yamanidu nimankan oromada sidoo ma qabtaan xagga Liibiya ay waxay qabtaan xagga Sacuudiga ay qabtaan marka wixii Soomaaliya magafa doonayay un baan ahayn 7 qof oo marka aan rakaabka ay wahayn marka sida darteed baan ka soo leexiyay oromadii oo marka waxaan ku baxnay safar Soomaali kale yaabaan marka ku baxnay safarka Yaman aad ka baxday xaqiiqad ku gashay safarka Yaman aan ka baxay waxaan ku soo gaaray ugu dambeyntii meeshii doonta la raacay Baamundab baan akhritaan ka imi Baamundab ma Yaman bay ka mid tahay mise Baamundab ha Yaman bay ka mid tahay meel xutiintu haysto u dhowdahay oo xeebta dhiig xeebna ku dhowdahay halkaas darteed waa doonta la raacaa halkaas safarkii ugu dambeysay Yaman kaga bixi doon marka todobadii Soomaalida ay kula socotay imisa hablaha todobada waxaan ahayn saddex baa hablaha afarteeda kalena waxaan ahayn wiilal baan ahayn todobadiina kaliya safarka galay marka mise waxa la gasheen dad kale oo iyaguna Liibiya u socday marka waxaan ugu tagi doonaa asxaab badan oo dhalinyaro dad aan soo wada garanayno isku wajhi garanayno badan soo nooleyn ayaan meesha ugu tagnay oo meesha ugu soo dhaweeyay meeshii ayaan asxaabtii ugu tagnay habeennimadii in badan waan la joognay 17 casho xeebtii ku sugnay dad waxaanu gaarnay 84 qof ayaanu gaarnay oo badan 17 casho xeebta ku sugnaydeen 17 casho xeebta ku sugnay 47 qof dad gaaray 4 dhammaantood Soomaali baa dhammaantood Soomaali baa kii markaas safarka aad ku gudbayseen aad ku tagayseen Suudaan baad gashay Suudaan baan galay ka waran safarka Suudaan laftarkiisa isaga laftarkiisa safarka 4 kaas ku raacday Soomaaliya 4 kaas ayaan ku raacay laakiin safarkaas wuxuu noqon doonaa safarkaas wuxuu ahaaday kulli nolosheeda ugu khatarsanaa 7 cishan ayaan safarka ku jiray bad dhexdeeda ku jiray aanan biyo baatuunaan cunin kulli marxaladaha baduna markaad badda gasho way iska dhibaato badan tahay si fiican waxaad sheegtay in safarkaasi hakii kuugu dhibka badnaa bal waxyaabaad kala kulantay aad ka xusi karayso adiga iyo asxaabtaadii safarka ku guula jirtay lawala safarkaasi aan ku sheegay safar dhib badan buu ahaa waxaan marmarka qaar marka daan soo xasuusto aniga laftirkeyga murugoyn badan ma dareemaa dad badan oo asxaabtayda marka ay dibadaas xaalkeedu ilaahay og yahay markay badaas afusho ay badaasi ay kacdo ayuu horto amarka ilaahay horta badaas ugu darantahay laakiin inta kale badda saarintiin aydan hadii ay ilaahay waxba ku yeelin waa iska soconaysa laakiin badda markaas kacdo inta aanu saarnay 7 shay ay badaas noo kacdo doonta raacday laftirkeedu doon nooc ma ahayn doomaha iska yar mise doon caadi ah oo loo oran karayo safety bay tamaameen bay haydo isku halayn karaysan la walaal doon aad u weyn bay ahayd doon power glass ayaan raacnay doon aad u weyn bay ahayd ma sha Allah adigu akhritaankii ilaahay waa nagu nabadgeeyay
wax dhibaatana kalmana kulmin ciidina nagama dhiman dhowr wiilo badda isku tuuray mooyaan badda maray marxalad yar waxmaad joog yar waxmaad mooyaan laakiin wax dhibaato ah kale maanaan kala kulmin oo dhimasho wiilasha badda isku tuuray laftarkooda ma dib u soo noqdeen hadana doontii u soo qoreen mise sidii bay ku tahay ma sidii kuma tigno ma dhiman marxalada yar waxmaatay badda aad u kacday dadkina way ooyeen dadka qaar way khalkhaleen marka labada nin waxay saxan kulay badan ka badbaadi meesaan deyntaanay doontu dagin iska tuura marka amarka la doonteeduna way yara qarxaday oo xaq hoose ay ka qarxay oo biyaha noo soo gal gaaray marka dadka badidooda sabab waxa ku dhacay marka labada wiilna waxay saxan kulay muhiimadu marka dadku qiyaasan waxay inta aan doontu ay dagin badda aamina badda isku tuureen muddo saacada bay rafinayeen ilaahay amarka wuxuu bixiyay nin la khudaaba ayaa ilaahay bixiyay oo shimbir uga dhigay oo doonteeda la saarnaa doonta noo waday marka doontu kala jeediyay inamadu ka dib tagay xarku u tuuray amarka ilaahay uu soo badbaadiyay in labadii wiilba doontu soo saaray isna intuu badda galay oo ka daba galay ayuu labadii wiil soo qabtay marxaladooda ka waran marka maadaama badda galeen oo ay dee baduna ka xasanay markay hadana soo fuuleen waa si wax ma ka sii noqdeen oo biyo dhibaato ma kala kulmeen iyagoo caadi ah iska soo ma iyagoo kulay horta nabad qaba soo kuleen isagoo xoogaa shoog ayaa yara galay nimankii muddo saacada way naqasana ku saareenay biyo aan ku hufinay muddo 2 saac kadibna way iska soo caafimaadeen way soo kaceen safarkiini isaad sheegtay ugu dambeyn ilaahay uu ku buuriyay Suudaan baa tagtay bal Suudaan laftarkeeda Maxamed bal waxaad kala kulanteen sidii leedin qaabilay iyo magafayaasha cusbaa aad iyaga laftarkooda ku wareegtay marka Suudaan aan tagnay horta marxalad kale marka aan la kulannay marba marka magaalada marka gobolka tagto marba marxalad bad la kulmaysan xeebta waxaan ka soo degnay maalintii 8aad ayaan ka soo degnay 5tii galabnimo annagu waxba cunin ilaa 7da maalmood aan badda saarnayn ana waxba cunin biyo baatonaan cunin ay biyihina maalintii 3aad badda soo saarnayn dhamaadeen baan nimanka u nimi nimanku waxay weeyeen niman irshaad baan u nimi oo Suudaan degan oo Sacuudiga meesha ku beeray Sahara degan yihiin marka 5tii galabnimo markaan doonta ka soo degnay rag baan hangaajoonaya oo dumar macal uur doon saarayeen biyo batrool bayna siiyeen oo kul biyihii batroolka adigu ugu dambeyn waanu ka dharagnay waanu markaan biyihii cadnay baabuur bayna saareen meedan ugu biyaha markaa cabaysan in batrool leeyahay waan ogeyn dee qof markuu biyihii ka baday batroolka uu dareemaya haddana dee waa biyo kale jirin biyo kale jirin wad cabaysaa un batroolkaagas adigu waa ku jannoo khadar markaa baabuurtii bayna saareen ala 10 qof bay baabuurtii noo saareen 8 baabuurta xagee markaa la idin saaray baabuurta waxaa noo saarayaa magaalo Khartoum dhow oo tuule ah oo ugu soo sokaysa xeebta ugu soo sokaysa tuulooyinka wayna geeyeen 8 saacadood baan baabuurtii saarnayn dadka qaar baabuur intee la leeyahay baabuur yar mise baabuur way haayeen tiri afya ayagu wateen ay ahaayeen imisa ku raacayeen baabuurkiiba waxaan ku raacaynay 10 qof ama 12 qof ayaan ku raacaynay marka sida darteed amarkii ilaahay 8 saacadood oo tagnay meel yar bayna geeyeen oo geera halka intaan idiga gudbin waxaad soo sheegtay inaad ahayd 84 kilomitir Suudaan timaadeen baabuurtan waxa loo raacayay 10 qof ama 12 qof marka wixii ma hal marba safarka wada gashay mise qaar baa marba loo soo noqoliyo marba qaar baa la geeyay may isku marba dad kala qaaday oo wada baabuur baa la kala saaray si fiican 10 qof marka gaadhi la saaro gaadhigaas ku dhaqaaqaya dib loo arkimis waxa arkaysaa un gaadhiga uu siigadiisa halka uu ka sii baxayso ma arkaysaa badanaa habeenkina nimanku toosh bay ku socdaan baabuurta oo baxsan askar iyo waxa ka baqayaan shurda iyo waxa ka baqaan marka waxay nigeen meeshii gaadhka bay nigeen biyo bayna siiyeen biyo caadi subaha Khartoum biyo caadi bayna siiyeen aan batrool lahayn biyihii baan camnay waxoogaa waxay iska habeen saan dambe ahayd waan saxsaxnay markaan saxnay subaxdii bay noo keeneen baasto iyo waxaan karsan iyo raashin iyo badan wax maana cun iyo biyo noo keeneen halkii baan ku nooleen muddo 20 cisho gaadhaysa maxamed Salaaman jaamac markaas aad Suudaan aad laftarkeeda idinku joogaad magaalada Khartoum u dhaweyd aad sheegtay aad u socdaasheen aad baabuurta u raacdeen iyada laftarkeeda waxaad kala kulmaysaan magafayaal cusub iyo haday doonto maxaabiis hore oo sii joogtay iyo yeelid tahriibay bal markaa laftarkeeda markaad dhowrkii gaari 84 qof saarnaayeen aad tagteen tuuladaas u dhaweyd Khartoum iyada laftarkeeda
bal wixii aad kala kulanteen iyo sidii laydin qaabilay khadarow halkaa magaalada laftirkeeda dadkayga kala jabaa ku yimi 48 qof dhowr iyo 42 qof oo nala ka qaaday 40 qof aan markaa ku soo harnay meeshii 44 qof oo nala ka qaaday habeenimo dhowr habeen kadib nala ka qaaday 40 qof aan ku soo harnay meeshii markaa amarka ilaahay in badan baan ka yara dambeynay muddo 15 cishaa gaaraysa markaa annagana Khartoum bay nageeyeen magaalada Khartoum bay nageeyeen way naga sii qaadeen marka ay naga sii qaadeen baabuur kale na saareen xadkay sidaan u geliyeen saxaraha sidaan u geliyeen nimankii Suudaanida ahaa markaan saxaraha marayno waxaan la kulmi doonaa rakaab iyaguna badan oo 120 qof aan ku qiyaaso ayaa iyagana naloo keenay oo aan isku safar noqonay marka waxaan la geeyay xadkii waxaan la taagay xadkii Liibiya la taagay rakaabka kalena oo nala soo kulmay safarka aad Khartoum kaga amba baxdeen waxaad sheegtay inaad 125 qof oo kale aad la sii kulanteen sax iyo intii kale marka idinka laftirkiinu 48 nimaad kala hadhay mise waad socotay ma waan kala hadhay kala safar baan noqon kala safar baa tiin waad kala hadhay waan kala hadhay marka 125 ka aad la kulantay ee aad Khartoum kaga baxdeen ee leedku gudbiyay maxay ahaydey xadkii 125 ka qof kale dhamaantood ma Soomaali baa hayeen mise kala jinsiyada kala gaar ah ma kala jinsiyada gaar ah ahaan Suudaani bay lahaayeen Eritrean bay lahaayeen Ethiopian bay lahaayeen waxa ugu badnaa qowmiyadda maraysay Eritrean ka marayay qowmiyadda ugu badnaa asxaabta laftirkooda halka kula kulantay Soomaalida ahayd dad aad garanaysay ama aad isku gobol haydeen ama aad istaqaaniin ama isku garanaysay kula kulantay iyaga laftirkooda oo safray walaal sharaf may badnayn waxaan kula kulmay inuu la 4 qof 3 qof bay gaarayeen inta aan wajigooda garanayay aan markaas ku safarkan soo noqonay xadkii markaa tagteen sidii xadka ugu gudubteen oo Liibiya ugu gudubteen xadka waxaan ugu gudubnay horta si sahlan baan ugu gudubnay xadka laftirkiisa markaad marayso laga yaabaa inaad shurto ka hesho oo qaar ku dhacaan oo tuwa kale ku dhacdo si wanaagsan aan xadka aan u marnay maalin iyo bar baan ku soconay xadka Liibiya waan tagnay labadii duhurnimo gooraan ku qiyaasay saacadu maraysay ay noo yimaadeen limanka Liibiyaanka nala wareegeen iyagoo baabuur kale u fiican wato qurux badan baabuur kayaaba wata oo safar ugu soo diyaargaroway inay dadka ku qaataan dadkii waa la kala qaybiyay qiyaasaan waxaan noqonay 160 baan filayaa suuqinteeda annagoo Soomaali Eritrean Ethiopian intaba annagoo leh ayaa baabuurtina saaray baabuurtii fiicanka qof walba wuxuu ku fuulayaa 35 qof ama 30 qof ayuu baabuurta fiicanka la saaraya baabuurta fiicanka waa baabuurtan waa baabuurta ay markaa Liibiyaanka ay wataan baabuurka waa lagu waxaan ku baabuurkaadu waa lagu cadaabaya si meel aan 2 qof fadhiisan karin ayaa ugu fadhiisanaya 5 qof iyo dhabi madax laga dhacaya ama qori madax laga dhacayo amarkii ilaahay baabuurtii waan fuulay waan soconay muddo dheer waxaan soconaba habeenku noo dimo cunto ma haysano adan biyo haday siin hayaan saacad markaan dhowr saacad socno in Europe bay naga basiyaan wax daryeelayaan halkaan ka yara dhaxgalay Suudaan iyo u dhaxaysa iyo Liibiya laftirkeeda masxarad binaysan markaan si dhul caadi ah maraysan waaye saxaraan maray saxaraasan soo jibaxnay marka sida darteed baan saxaraha u soconaa marka waxaan soo galnay xadkii Liibiya soo galnay Liibiya waxaan nooga harsan maalin baan filayaa marka aan maalinta dhan soo soconay habeenkii waan yar meel yar baan u seexnay buur ah buurtii markaan aan jiifsanay in Eurobiya bayna siiyeen afaan qoynay waan yar seexnay subaxii waagi markii saa u bariyo qoraxda soo baxday iyadoo dhaxan wuxuu dhacayso dadka badankooda dhaxanaysay oo waxaan ku dhalinyartooda qarqarayso oo dumarkii aan wax daryeelahaysan oo dadka gaajalaysay ayna saareen subaxii markii waagu soo bari markaas ay qoraxdii ay soo bixi rabto ayaan baabuurta dib u fuulay wax cunto aan namaysiin yow Liibiyaanku mar walba cunto iska karsanayaan way iska shaahayaan way iska sharaabayaan cuntadooda gaariga ay saarantay kala soo degayaan marka anana baabuurtii baan fuulay waan soconay mar ay marayso 11 duhurnimo mar ay marayso ayaa gaariga aan ku saarayn naga xumaaday markuu gaarigaas noo xumaaday ay ugu daray saxarada waan maray marka waxay sameeyeen baabuurtu way istaajiyeen baabuurtu waxay ahaayeen ilaa 5 ilaa 4 gaari bay ahaayeen baabuurtu ay aan wadanay baabuurkayguna la kasoo dejiyay markii la kasoo dejiyay baabuurka ayaa baabuur kale aan dulsaar ku noqonay
dadkii la isu kala qaqaybiyey la saarshaandhigay shanba meel la saaray iyagoo markii hore baabuurtii cidhiidhahay haddana sidaa darteed baabuurkii waanu fuulnay wuuna qaaday baabuurkiina halkii bay kaga yimaadeen markay kaga yimaadeen waanu soconnay markaanuu soo dhoweyn magaalada ugu sokaysa Liibiya oo la yiraahdo Kufra markaanuu soo dhoweyn ilaa aduu 3 saac ay nooga harsanayd ayaa waxa dhacday weyna warwareejinaya marba meel wada toos u mari karto ayaa marba kugu soo wareejinaya marba buur xaqadba ka maranayaan si aad u jarahboodo meel alaalay iyo meel ka soo baxday iyo meel aad ka timid aad garanayso inta laftarkeeda iyagu waxba iska karsanayeen baad sheegto inay wax iska cunayeen iyagu maxaad jecsinaysiin idigiisa safarkiin law jecsin waxaan sidinada ma jirto waxaygu naga soo dhamaadeen biyo yar baan sidinay biyihiina way naga dhamaadeen marka waxaan iyagu baan wax ka qaadanaynaa marba waxaan dayacan aragno ayaan iyagu aan ka qaadanay aan nafta ku yara qabanay laakiin wax si gaar ah idinka idin siinayeen idinku tala galeen ma jirin nimanka Liibiyaan gustidooda maba naxaan baan si dabatana qof waxay ka naxayaan gabadh uur kale ama gabadha imka ilmaha yar sideeta ay ka naxayaan oo ay waxoogaa sharaab siinayaan iyo waxoogaa biyo siinayaan iyo qofka yara xanuunsada ay ka dareemaan qofkan inuu aad u xanuunsanayo ay in European afku ugu qoynayaan marka wax cunto oo kaamil oo rakaabka dhan la wada siinayo ma jirto dadka qaarna way kala fiican yihiin oo laga yaabo nimanka qaar marka ay Liibiyaanka ku yimaadaan ay kula soo wareegaan inay qaar baasta ku kariyaan biyo ku siiyaan oo kula baastada karsada waxoogaa baasta ay tuuraan maxamedow safarkaasi intee in la guud ku soo qaatay oo aad markii Suudaan kala soo wareegay oo aad ku imanaysiin goob kale walaal safarkaasina horta saxaraha dadku qaarba inbay kaga gudbaan qaarba 10 cisho kaga gudba qaarba 8 cisho kaga gudba qaarba 12 cisho kaga gudba dadka qaarba saxaraha ku dhinto ku dhibaato gaadhi kula dhaca qaarba shurta soo warata oo dadka la dhibaateeyo dadka la kala dhaca amarkii Ilaahay annagu wax dhibaato ma na kulmin saxarahana waxaan ku soo jiray muddo saxarahaas oo dhan 4-5 cisho ayaan kaga soo baxnay dhamaantood markaan 5 cisho saxari soo marnay wax shurta ama arag wax dhibaato ama arag inta haraadka gaajada diifta mooyaan wax kala ma arag sidaa darteed waxaan soo galnay magaalada hore aan kugu sheegay habeennimadii cisho markii saa loo yeedan doono ayaan magaalada Kufra soo galnay ee magaalada Liibiya ku nooheeda halkaas dadkii markii aan soo galnay magaaladii Kufra inama yar oo Liibiyaan oo qoriyo wata oo inama yar oo dhisan wada askara ay bud iyo laad iyo dabada noo qabteen muddo koobad baynu dilayeen ayagoo aan waxba weydiin xaq socodka ilaa hablaha ma dilay ilaa hablaha iyo ilaa ragga isku mid oo sameen baatiin labadina qof marka ma jeelal bay galiyeen xaqay ku hay ilaa waxayna geeyeen beer weyn bayna geeyeen oo ganjeel ku dhex yaalo beertu markaa beero weyn Liibiyana sidoo wada beero waxa jeel baa ku dhex yaala hool weyn ayaa ku dhex yaala beerta markay ay dileen ay xogaa dhibaato noo geysteen ay in European siiyeen biyihii markay ay siiyeen ay hoolkii xisaab ay nagu geliyeen iyo tirtiro iyagoo naga baaraya sakiimo iyo midiyo iyo xayawaan noocaas waxyaabo dadka dhibaateeya iyagoo naga baaraya ay jeelkii si toos noo geliyeen jeelkii waxaan lagu tagnay dad badan oo ajaaniba oo Soomaali ku jirto Suudaan ku jirto Eritrean ku jiro Ethiopian ku jiro saddex nooc Chinese ku jiraan ayaan ugu tagnay marka annaka aan waxba cunin ayaa leeyahay cuntada loo gaarsiin halkii aan cuntada ka filaynay ama bariiska ama baastada aan ka filaynay ayaa waxay noo keeneen daqiiq bay noo keeneen inta ay soo xashin ay kala bixiyeen dab yar saareen ay milix yar saagu daraan ay noo keeneen iyo waxoogaa European ay noo keeneen waanu yaabnay saxan weyn toban fadhiis waan ugu dhahan toban fadhiisnay saxan weyn bay noo soo dhigeen saxan waan saarnaa saawad saxan wada daqiiqa fadhida qof walba markuu mar u horay 2 jeer horay ayuu iska kacay halkayga aan ka farxaanay oo iska seexanay jeelkii subaxnimadii aan soo kacnay subaxnimadii markaan soo kacnay jeelku waa jeel aad dhibaato badan oo jeel dadka lagu dhibaateeyo waa jeel dadka lagu dilo dadka lacagta hore laga waayo waa lagu dilayaan amarka Ilaahay maalmaha koobaad Ilaahay wuxuu nagu yeelin cid lacag ma weydiin muddo 3 bilood baan jeelka ku xirnaan maalintii bishii afraad baa lacagtii la weydiiyay ay rahan 8250 kun soo dira cala qof inta waxa ka soo sheekaysay safar runtii marxalado badan aad soo martay dhib badan aad soo martay waxyaabo badan oo murugiyo dhiban aad ka soo sheekaysay
maxaad ka aaminsanayd markaad islahayd Liibiya waa tagaysaa oo marka lacagta lagu weydiiyo iyo Liibiya laftarkeeda markaad tagto maxaa adiga marka hore kaaga sii sawnaa islahayd waa lagu soo dhaweynaya meel baa lagu fariisanaya waa lagu mise walba waad sii haysay sheekada iyo warka ah in Liibiya la isku dilo oo la isku jirdilo oo lacagta laftarkeeda xitaa xoog dadka lagu weydiinayo oo aan la iska baryin horta asxaab badan oo xagaa tagtay wadamada shay Yurubta oo Liibiya dhibaatada sii maray way iga sheekeeyeen oo xiraan war Liibiya waa la isku dilaa oo sida wadanku aad moodaysa ma aha oo lacagta xoog baa laga saaraya oo koronta lagu qabanaya hadana dhag uma dhigi jireen waxaan isla warniyo khayrka halku maray una aduguna marniyo xinay dugso ilaahay baan ka dhigaa korontadaas iyo waxyaabahaas sheegayeen adigu markaa indhaha ku soo aragto dadka waa la jirdilayay korontada laftarkeeda dadka waa lagu qabanayay waxyaabo loo korontada horta mar rumaysan jirin marka laga sheekeeyo laakiin ilaa aniga lagu qabtay koronto oo xinaha iyo halbowlaha laga qabtay imaan rumaysan oo aniga la soo daldalay oo halkaas sare lagu soo xidhay oo la bahalshi la dhacay biibaar la dhacay oo koronto la dhacay oo dhibaato walba loo geysay oo dhalinyarada badankoodu mid waliba dhibaatada aniga la dhacayo isna sidoo kale loo dhibaateynayo oo ku naxariis maayaan haddii lacagta ka waayaan way ku jilayaan way ku jirjilayaan way ku bahdilayaan ciid baaf kaaga shubayaan qaabkaada family uu la soo xidhay maxay aad u sheegtay in Liibiya joogto ay lacagta soo diraan say ku siinayaan jaanisadaas iyo inaad family la xidho no chance kaas wallahi iska dhib badan yahay qofku horta nasiib la waalidkii la hadla hal telefoon bay ku keenayaan yar rasiid bay kugu soo shubayaan sharaxad yar way ku keenayaan waxa intiina ajeelka ku xidhan ma aha tan 500 qof ma 600 qof aataan halka mool baan ka dhaxaynaya halka mool markaan ka dhaxay lambarkii qofkii waalidka ahaa waad mas'uulinaysaa marka aad mas'uul soo duud oo mar yiraahdo ama laba jireeno waad ka jaraysaa adiga iyo nasiibka qofkaas haduu waalidka kugu soo celiyo telefoonkaaga oo kugu soo celiyo oo lagu yeeray waxa hebel baa la soo qaraac marka sidaa darteed waalidku waa iska nasiib waa isku dhibaato badan yahay teen 600 qof oo hal telefoon ka dhaxeeyo waad qiyaas kartaa dhibaatada adiga sheego waa dhibaato badan 600 qof hal moobil ka dhaxeeyo adigu chance ka saad heshay inaad waalidka la soo xidho no chance ka si dhib badan baan helay maalintii koowaad lacagta la isweydiiyay ayaa mool la dhiibay waan mool in badan arag family la hadal muddo 4 bilood oo jeerka ku xidhnaa inaan dhintay inaan noolaa aan war leeyahay ayaa halka telefoon noola keenay chance kana waxaan ku helay telefoonka noola keenay lacagtina la weydiiyay lagu reerihiin la hadla lacag baan ka rabaa muddo 3 shahar hadii ay lacagta ku soo dirweydaan nasiibkeena qabtaan ma 4 bilood dhama jeelka ku jirsan iyaga moobilada waxa idin keenay marka hore mise markii saal idin geeyay laftarkeeda lacag la idin ka dalbanayay moobilada wala idin keenay waalidkii la hadlaa ma inta jeelka ku xidhay wax telefoon baan arag 4 bilood wax telefoon ma arag reerkii ugu warnagama yahay kadib markii aad la soo hadashay waalidkii kulli waalidkii naxariisiisa wada garanaya daatana waxaan ku war helay salaamu calaykum wa fiicantiin ma sha Allah markaan reerkii wareystay waxaan ku hooyo lacag waa laga rabaa inta tirada dhan tahay daatana sidaa darteed baan ayaan ku helay telefoonka aan family ku hadlo lacagtii muddo inta lagu soo bixiyay muddo waxa laga soo bixiyay 16 cisho ayaa laga soo bixiyay lacagtii imise qiimaheeda lacagtu waxa dhammayd $8,250 baa laga soo bixiyay markaas lacagta shiideynta iyo lacagta doonta waxaan maqlaa in gaar loo kala qaado markaas totalka meelaha lacagta doonta adiga kugu jirtay mise taas waa mid gaar may niyow nimankani marka aad xeebta joogto horta marka aad Liibiya soo gasho nimanku lacagtooda isku mar bay ka wadisnaa ama doon ahaato ama tii saxara ahaato ama tii wada mareenka ahaato saddexaas kala saaran mid doon lagu raaco oo badda laga gudbo mid saxara lagu soo galo Liibiya lagu soo galo mid wada mareena saddexdaaba mar bay ka wada qadimeen totalkooda way isku qiyaasanayaan marka total buu isku oranayaan ninka rakabka ku soo iibsaday ka soo iibsaday ninka ka soo iibsaday totalkiisa mar buu isku dhufsanaya wuxuu leeyahay intaasan qofka ka rabaa 8,000 iyo marka dheeraadka saddex totalkaaga baxay ilaa uu tabanaykaagi ilaa uu tabanaykaagi ilaa waxaygi ilaa xabadaydii ilaa tiibata waxba mar buu laga wada qaaday lacagtii iyo shuruudoodii markaad ka soo baxday aad bixisay in xaqii ku geeyeen hadana lacagta markaan aan ka soo baxay lacagta markii la iga soo bixiyay muddo jeelka ku jiray muddo dhowr cisho gaaraysa aniga iyo saxaab kala badan baa isku safar noqonay oo la qaaday waxna la geeyay meel barashaad la yiraahdo ayna la geeyay markii aan xooshka ku furmarkan ka baxnay barashaad baan noo xigay jeelkiiba ka weyn oo leeg adigu magaalo dhana oo dadka ay ku xidhan yihiin markaan jeelka soo galnay aad baan u warwarnay waanu yaabnay
waxaan isla tolo ma lacag kala aan ka rabaa tolo meesha waa maxay waxay markaa jeel kan ka si weyn markaa soo gasho si yaabaysa oo si ficaysa marka wayna soo dajiyeen wayna tiriyeen waxayna geliyeen hool yar oo kiiba ka yar oo ilaa adigu qol oo kala bayna geliyeen oo ku jira 500 adigu ilaa dad 200 qof ku jiraan oo wada Soomaaliya oo jeelkaas huurka iyo kuleelka iyo naqaska dadka qaar baa naqas meel ay ka qaateen awgeed waaye oo meesha jiifadana dibadda loo saaray suuliga sidoo kale suuliga waa hal suuli weeye ama waa laba suuli hal suuli waxa la hablaha leh hal suulina waxa la inamada leh halkaas suuli dhibaatadiisa suuliga waxa ku wada galeysaan 10 qof ku wada galeysaan ama 5 qof ku wada galeysaan naqaska meel yar daaqad dalool oo kala abu in ka soo galaya xooshkana in badan ma anako yaaban xoosh tiftahay oo huurkii maxamed kulli markan aad leedahay jeerkii ka sii daran baa ligay haddana waxaad sheegtay in aad lacagtii bixiseen in markaas waxaan maqlay anna kulli sida ugu maqaalada in dadku markay lacagta bixiyaan oo kale in meelo kale oo gaar ah lageeyo loo naxariisto markaas idinka laftirkiin mise waxba kama jiraan weeye arrinkaas in dadku markay lacagta bixiyaan meelo yar fiican lageeyo may meel ka fiican wala la geyn doonaa laakiin jeelka nasiino bana la ku haya imisa ku jirtay jeelka laftirkiisa niyo amarka ilaahay waxaan ku jiray 3 cisho maalintii afraad waan ka baxnay annagoo ku faraxsan jeelka dhibaatadiisa inaan ka baxnay markaas xagee leedin marka waxaan la geeyay meel kale oo xagga ka xigta oo Canada la yiraahdo oo Soomaalidu ku nasato oo waxa jooga nin Soomaaliya ayaa meesha haysta oo xooshka iyo nimo Suudaaniya waale qofka lacagta bixiya ayaa la geeyay ilaa inta uu soo baxayo xeebta safarka badda laga geenayo halkaas uu qofku joogaya meesha Soomaaliba joogta ciidisa ku eegmayso waad noolaanaysaa waad cunaysaa waad cabaysaa dharkaaga nooca doontaad xidhanaysaa waa iska degananaysaa meel xoosh oo jeel oo kala ama dharka iyo waxyaabaha kale cuntada iyo waxa markaa iyaga bixinayeen qofku lacag aad leedahay baad ku iibsanaysaa may qofka lacag baad soo dirsanaysaa waalidka aad leedahay waxa leedahay lacag noocaas waan u baahanay dhar siisto aan wax ku cuno ayaa leedahay waan u baahanahay markaas lacagta waa lagu soo gelinayaa waa lagu soo diraya lacagtaadu baad isticmaalaysaa aad dhar iyo cunto ku iibsanaysaa inta halka joogtana iyagu wax ku siin maaya adiga lacagtaada isticmaalaya markaad halka joogtay runtii safar dheer aad soo gashay halka imika markaynu marayno waxaad moodaa in natiijo fiican aad marayso maadaama aad leedahay waa halka ugu fiicneeyo in la sugo markaas badda iyo doontiina raac in balqaabkeeba doonta u sugayseen doonta laftarkeedase qaabkee kaga baaqatay qaabkeese aad leeyahay qaabka aan badda kaga baaqday waxa ahayd sanadku waxa 2017 bishii 12 marka xeebta badda nagu xidhantay sida darteed xeebta badda marka nagu xidhantay xooshka aan joognay waxa la yiraahdaa badda kacsan ma gali kartaan baddi way xidhan tahay ilaa koobaad waa joogaysaan ilaa labaad waa joogaysaan markaad joogteen inta halkii xooshkii waxaan joognaa xooshkii Canada aan joognaa bishan aad joogtaan in leeyihiin koobaad baad tagaysaan wadashii waa bisha koobaad la leeyahay badda inaad gashaan baa laga yaabaa intaad sugayseen waa intee marka waa 12 baan fadhinaa imka xooshka bil baan sugaynaa marka insha Allah bad marka furanto waxaan ugu maawinayna badda galaysan koobaad baa guunaysan ama labaad baa guunaysan labaad baan ugu dambeyn insaarayna akhritaan halkii waan joognay waan iska joognay muddaan iska joognay iska noolaan aan cidna dhibaateenin ma gafanaan sarkeen laakiin si beertada hadii aad ka baxdo inta meeshu waa hool beer weeye beerta hadii aad ka baxdo waxa ku qabsanaya qof kale beertaada gubtay ayaa ku qabsanaya marka taxadar baad sameeysaa lagu sheegay waxa laftirkiisu isna waa magafa kale oo lacag ka doon hadii aad beertaada gasho aad xagga in yar beertaada dhaafto uu ku qabsanaya 8200 ka tagi laga bixiyay ayuu iska oranaya $10,000 ayaan ka doonayay marka iska ilaalin jirtay waa iska feejignaanaysaa marka sida darteed beertaada inaad ka baxdo lama ogola haddii aad ka baxdana aad ku xuntahay waayay waxaad gaadheen bishii ay idin qabteen doonta raacdaan oo bishii labaad ama bishii labaad noqonaysay ka warrama marka safarkii doonta halka safarkii waxaan habeenkii waan ka baxnay halka xooshka Canada aan ka baxnay waan soconay waxaan tagnay magaalo Banawilid la yiraahdo magaalada Banawilid ah oo magaalada Liibiya ugu xun ee dadka lagu dhibaateeyo dadkan aynu ka aragnay ay dadku ka arkaan shaashadaha social media dadka la jirdiray korontoon ku qomanayo oo meesha waxa dhibaatada lagu sameeyay dadka halkii waan muddo joognay muddo dhowr cisho waan joognay waan ka tagnay waxaan tagnay meel la yiraahdo xeebtii aan soo istaagnay
xeebta markaan soo istaagnay muddaan joognay muddo markaan joognay habeenkii dambe ugu dambeyntii wax la yidhi doontaa la saaray aakhiritaanka nihayadii xeebta intay Soomaaliyeed la socotay markaad xeebta soo istaagtay noo markaa waxaan nahay 70 iyo dhowr 70 qof baan nahay xooshka kale badda ku yeelan waxaan ugu tagi doonaa dad badan oo ajaaniba ayaan ugu tagi doonaa oo nooc walba leh dadkii maanu halkii kula noolayn aan muddo iskala joognay muddo 15 cisho gaaraysa ugu dambeyntii habeenkii dambe waxaan soo baxay safarkii doonta oo la yidhi doontiinima in diyaara Soomaalida Soomaali khaas ah ku raacsan doonta waxaan ku raacinaa Soomaali khaas dadku qomiyad bay ku kala raacaan doonyaha haye bal doontii markii uu sugaysay markaa kadib doontii sidee u qaabishay doontii waan habeennimadii waan la qaaday xeebtan la dul fariisiyay xeebta markii habeenkii la dul fariisiyay waxa la yiri markii la tiriyay waxaan noqonay dhowr 70 qof ayaan noqonay doontii waan loo buufiyay doontu doon bacay ahayd waan loo buufiyay markii loo buufiyay aadlisay doonta saara ay badii nagu xamaatay dadna badii baan ugu kacday markii badii ay xawli u kacday ay nimankii Liibaanka yiraahdo badii aad u kacsan tahay caawa ma ful kartaan iska samra bukra saara doona hadii la haydo iska samra horna ma samrayna iyo anaka ilaahay ama anagu nasaara oo anaka ilaahay baa wixii qoran aan seejinayo dadna amarkii ilaahay weydiitay in xiraan ma saarayna in dhibaato ma doonaysaan wayna soo celiyeen xooshkii hadana dib noogu soo celiyeen kibad markaa waxaan tagnay xeebtana la geeyay xeebta markii la geeyay badda baan ugu raxmaatay annagoo doontoodina la qasiyay oo wixii ay noo diyaar yihiin ayaa badda la geeyay oo doontooda diyaar yihiin badda baan ugu kacday markii badda waxoogaa ugu kacday nimankii Liibaanka weydiiyeen xiraan badda in saar mayno wayna dhibaataan baa doonaysaan lacag baa la ka soo bixiyay reeraa in sugaya markaa ilaa inta saacada subax ilaa inta waagu ka soo bariyo hadii baddaasi ay caadi noqoto badda waa fuulaysa hadii kale ay baddaasi ay si kacsanaatana dib baa noqonaysa xooshkiina waaysan nasiibkiina mar dambe ayaa la eegaysan markaas aad darteed aan u fadhino waaga soo cadaaday aan baddi u sugaynay baddiina xawla ay u kacsan tahay mawjada tii ka daran ay bixinayso marba si dambaysa markaas aad darteed waan soo noqonay halkii xooshkii karaabulka yaalay ayaan hadana soo noqonay xooshkoon iska joognay muddo aan u samarnay badda way sii tagay dadkii badankoodu waxoogaa way xanuusteen dadka tiimbi waa qaar kula dhacday qaar way dhinteen qaar gaajo dhinteen meesha biyaca maysid cunto fiican cunmaysid baasayar baa lagu karanayaa laba gelin baasayar wax nafaqo ay ku kordhinaysa male gaajo ka biin mayso injir baasaa ku cunaysa dhar aad ku waxaad dhar kaga bedelatay ma haystid waxaad ku maratay ma haystid biyo hal waqti way soo dhacayaan meesha markaa dhibaatada walaha way iska badan tahay markii dadkii badankooda ay dhinteen ilaa dhowr 20 qof ay naga dhinteen ayaan meesha ka tagnay aan habeen midow aan ka tashanay aan ka caarno aan magaalada aadno marka Trablisna waxa jooga hay'ada ayaa jooga la yiri marka hay'adaasna warkooda helnay waxaan warnay walaal halkii naftaada ay ku badbaadaysay aadniyo marka sidaa darteed waxaan ku soo baxnay dhowr iyo 50 qof ayaan ku soo baxnay xooshkoon ka soo carnay waan soo guuranay Trablis baan soo galay adigu ilaa saacadii wax maray ku dhaweyd waxaa noo yimi niman boolis baa noo yimi su'aalo badan bayna weydiin xagaa ka timaadeen xeebta ku xunnaday ninkii baa in haystay badda ma gasheen xeebta ku xunnayd magaceeda ninkii haystay magaceeda xooshka joogtay magaceeda su'aalo fara badan bayna war ma garanayna waa meel ka timin meel baan ku xunnay waan ka soo baxsanay in badan waxaan maana cunno waxbaan cabin roodhiir baan siiyay markii roodhidana siiyay baabuur baan ugu soo qaadeen hay'ad baan la ku yeeray hay'ad markii la ku yeeray jeel baan la geliyay jeelkii ayaa caafimaad iyo cunto wanaagsan intiba iyo daryeel intiba noogu horeysay hay'adda markaa noo timi dharna siisay dharkii jirta hay'ad wixii naga tuurtay markaa naga tuurtay cunto fiican na siisay baca iyo shampoo iyo colgate iyo waxyaabo aad u fiicanteeyo sareysan siisay markaa halkii baan ku jirnay aan jeelkii aan in badan ku xidhnaa 6 bilood ku xidhnaa maxamed Saleeban jeelka dambe hay'adaas kulli adiga yiri si fiican baan ogalay oo jeel lama oran kariyo laakiin wax yaray ku ay ka amo kale laakiin xagga hore hadaan dib ugu yara noqdo waxa soo sheegtay inaad halka mar doontoodii ka baaqatay aad baxsateen oo intaad wada jabiseen aad soo tagteen oo marka laftarkeed mar kale maydan rajinin inaad badda sugtaan ama se dadka qaarkood imika dhalinyaro Liibiya joogtay laftarkooda dhowr jeer bay ku noqdaan
badda laftarkeeda marka idinku ma waxaad isla markiiba go'aansateen markii baddaasi ay deg weyday inaad dib u soo laabataan markaa mise askarta laftarkooda aad la kulmaysaan baa idin khasbay waayadii idin dhiibay idinku waxay islahaydeen meel kaloo badda laga galo oo doon laga raaco sii tag may markaa meel bad laga raaco maanaan niinayn waxaanu danaynaynaa in meel laftayadu ay ku badbaadayso waayo dhibaatooyin badan baa nala soo kulmay gaajo badan dayac badan haraad badan silac badan caafimaad la'aan oo daryeel baanan haysan oo jirkaygu u go'ay oo xasaasiyad baana laysay oo gacmaha dadka qaar baan aan xubnahooda qaar aan qaadi karaynba dadka qaar si aan markaan soo baxsanay aanu sideennaba aan tuurtaan ku sidanay ilaa dhowr qof oo naga mid annaka maxamed hay'adda 6 bilood baad la joogtay hay'adda laftarkoodu sida ugu maqaala ah ma khasbaan dadka laftarkoodu ma jujubaan oo ma noqdo ma yiraahdaan qofkii yiraahdo ma noqonayaa baa la celiyaa dadka qaarkood waa qaar jooga qaarkood sida maqaalada adigu waxa xaqiiqada ku ogtay waxaan maqlay in laftarkooda la qaaday iyaga oo yurub la geeyay imka hay'adda laftarkeeda adiga markaa maxaa kugu dhaliyay option-ka ah maadaama aad tahriib u socotay oo aad markii hore tahriib u baxday inaad dib ugu soo laabato waddankaaga oo hay'adda tiraahdo waxaan ku jira anigu qolada waddankooda dib ugu laabinayso نقول تا فكرة واحد يقول لي هل كي تشال كمر كان صوق لاي لبها هذا ما يشجع مدوارهم من نوع UN كودتك ويسج الجريان ويقران رجم بأن أوليس إن مالها كلا لو قاعد عملنا نشر لو قاعد عملنا سيدك قتلاني والجيو وقف كي سمر كرا سمر أيا سمر كرا تنا هايتن كرا أيام بالله هذا كي وقف ولا ودينا وحلقنا ودك هاي مفقوع لنا مثل UN كانوا قراء وأن السوق سأقنا صفر أنت أنا محقوق عن كرا markaas darteed aan meeshii waan sulugay meeshii qaraxya ka dhacay dagaal ka bilowday hay'adihii meesha joog jiray nagu dareeri jiray way naga tageen hay'adii in yar baa soo hadhay dagaaladii baa soo xogeystay ilaa jeelasha annaka albaabada la ka qaadi gaaray oo magaalada lagu sii din gaaray meeshan iyo dhibaatadu aad bay isaga fara badan tahay markaas darteed islaam inta aan jeel ku jiray waxaan go'aansaday inaan waddankaygii haddii aan nasiib u yeesho in hay'adaasi qaato waddankayga geyso anigoo bad qaba inaan waddankayga ku laabto maxamed saleebaan sida ugu maqaalada ah in hay'adda laftarkeedu waxa la shaqeyso qolo Soomaali ah oo madax qolada Soomaalida laftarkeedu ma jirtaa cid idin gacan idin ka siisay inaad waddankiina dib ugu soo laabataan hay'adda laftarkeedu idin la hadasho niha wajiraan safiirka Soomaaliya noo yimi oo jeelka noogu yimi sidoo kale wiil yar oo isna xogaya oo isna Ibrahim la yiraahdo la socday ayaa jeelka noogu yimi ونو soo galeen jeelkayga taajura la oran jiray ونو soo galeen waxaan ugu dhaaheen Soomaali ma joogtaa ha baa la yiri Soomaali noqonaysa waddankeeda ku laabanaysa ma jirtaa baa la yiri ha baa la yiri ونو soo galay sidii waan ku soo baxnay safiirka waan sidoo kale kulanay waan salaanay maalintaas uu noqonaysa xaqiiqo ma ka go'aantay inuu waddanka laabataan ha baan ku niri wuuna soo jirgeeyay wuu noqoray marka maalinta waxaan ku qoray afreesno qof baan ku qoray amarkii Ilaahay afreesno qofba si toos ka baan soo baxnay aanu waddanka ku soo laabay safarkaadu waddanka ku soo noqonaysay diyaaradda laftirkeeda xagad ka raacday diyaaradda laftirkeeda waxaan ka soo raacnay jeelkan waan ka soo qaaday garoonkan kanay Trablis baan arkanay madaarka Trablis baan ka soo raacnay diyaaradda safarkaaga aad burco ka bilowday ayaa aad runtii soo gabagabaysay inaad dib u soo laabato diyaaraddu xigmada ka soo rogtay Muqdisho mise Hargeysa diyaaraddu waxay naga soo rogtay markaan Trablis ka soo qaadanay toos waxay noo keentay Muqdisho noo keentay muqdisho markaan keentay muqdisho si wanaagsan noo soo dhaweysay garoonka wasiirka nagu sugayay safarka si wanaagsan noo soo dhaweeyay hotel baan la geeyay habeenkii oo cashinay subaxnimadii markaan la bixi joognay isla maalinta bana hadana diyaarad kale la soo saaray madaarkan hadana ka soo dhoofnay waxaan ku soo degnay Hargeysa ku soo degnay hadana madaarkeeda markaas saasana waddanka ku nimid hay'adda sana suurta gelisay inaan waddanka si wanaagsan aan ugu soo noqon runtii hay'adaas iyo wixii Soomaaliya ka qayb qaatay dhalinyarada waddankooda dib u soo celiyaan oo mahadnaqaynaa adiga iyo dhammaan inta kale Soomaalida ee jecel beenay dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabtaan markii aad waddankii timi bal jawigaad ku qaabishay waalidkaaga in badan aad ka maqnayd iyo familygaaga bal iyada laftirkooda dareen gaar ah wax barsanta bal dareenka isaga laftirkiisana la wadaag loo walaal kulay horta dareenkaas waa dareen aad wanaagsan hooyo wiilkeedii in badan ka maqnaa oo maanta hadana waddankeed ku soo laabtay si wanaagsan ugu farxaysaa markaan muqdisho imi xoog way iga hayeen inaan soo socdo markaan muqdisho imana waan la hadlay waxaan ku iri hooyo waan joogaa waddanka joogaa muqdishoan joogaa si kale ya laaba ay ugu farxasay si qof in badan wiilkeed ka maqnaa ugu farxi lahayd ay si ka badan igu sii farxad waalidkeyga maxamed saleebaan waddankii baad dib ugu soo laabatay oo Hargeysa timi kasii gaar ahaan oo aad ka soo safarto magaalada Burco iyo gurigiinii baa timi iyo familygaaga
imika maxaa kuu qorshaysan laftarkeeda oo maadaama waddankaaga dib ugu soo noqotay oo tahriibtii kugu beermatay aad iyada laftarkeeda ka soo wacay aragtad ka soo noqotay imika laftarkeeda maxaa kuu qorshaysan imika laftarka waxay qorshaysan inaan horta waddanka aamino marka koobaad muhiimaddu inaan waddankayga aamino aan ka shaqaysto aanan mar dambe ka bixbixin oo sida ugu fiican ee imika ila habboon ay tahay inaan waddankayga ka shaqaysto aan u soo jeesto waddankayga ugu dambeyn maxamed Saleebaan Jaamac waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo sidii aad mar tahriibta qalbiga ugu haysay maanta qalbiga ku hay oo inay tahriibaan jecel iyaga laftarkooda maxaad kula talinahay su'aal kale oo iyada dul saaran laftarkeeda haddaan ku weydiiyo kuwii aad ka timid laftarkooda ee Liibiya ku sugnaa iyaga laftarkoodu talay u baahan yihiin iyaga laftarkooda maxaad kula talinahay meena sii socdaan oo jeelasha ku jiraan mise inay waddankooda dib ugu soo laabtaan su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxay noqonaysaa qaar gudbay baa iyagu jira oo hamigoodii Ilaahay u rumeeyay oo Yurub galay Yurub laftarkeedu sidoo ka war hayno waa waddan muslimiintu ku yar yahay waa waddan cuntooyinkii xalaasha ay muslimku cunayeen laftarkiisu ay ku yar yihiin bal adigoo saddexdaa qayboodba mid walba tala gaar ah siinayo ka bilaabaya kuwa waddanka joogeenka taariikhda waan qaltaagay kuwa Liibiya ku sugan laftarkoodu oo jeelasha ku jira iyo kuwa iyagu gudbay bal maxaad kula talinahay waxaan kula talinayaa ninka maanta waddankiisa joogay ee doonaya inuu tahriibo oo waddada dheer maro horta ninkan waxaan kula talinayaa saaxiib waddankaaga iska joog waddankaaga aamin marka halka imka aad marto waxba kala kulmaysid wax faa'iido kala kulmaysid wax dhibaato iyo gardaama iyo khasaaro maal khasaaro lacag aad u tir badan laga shubanayo intaas waxaan hayn ka faa'iideysid iyo adigoo lagu jirjirayo horta intaa waxaan hayn dhibaatada waxaan hayn ka faa'iideysid iyo adigoo waalidka ka naxiyo marka maanta waxaan leeyahay wiilka halkan jooga ee waddankiisa jooga ee waddankiisa ka shaqaysanaya waxaan war waddankaaga iska aamin meel kalena ha bixin taayna asaan nooca u taala tiina asaa lagu najaxaya haddii ilaahay wiilka kale isna iyagana dhalinyarta kale iyaguna aan kaga imi waddanka Liibiya aan kaga imi aan badan isku xasaab tahay aan isku safar qaayn aan dhib iyo dheef soo wada qaybsanay horta marka koobaad nimanka waan ducaynay ilaahay iyaga meesha ka soo furfuro waxaan leeyahay saaxiib in badan baa aynu isku safrahayn aan isku wada waqti soo wada qaadanay waqti wada soo wada qaadanay amar wax walba iska qoraan waxaan leeyahay saaxiib aad chance hadii aw heshaan in waddankan ku soo laabataan waddankan ku soo laabto ugu dhaqsiyaha badan wiilasha kale ee iyaguna ku sugan waddanka qurbaha ee tahriibe Ilaahay hamgood u fudiyay ee wadamada gaalada jooga oo wadamada seen ognahay wadamada gaalada waa wadamo waxaan ku dhibaatada leh oo diintu ku yartahay oo eedaanka ku yar yahay sida hore u sheegtay iyagana waxaan leeyahay saaxiib wax la wixii diintiin ka horeeynaa ina dhagihii Ilaahay waaniyaa deesko waansan masaajidina iska leexda salaadina iska tuugay iska cibaadaysta wixii dantiina ah iska raac maxamed Saleebaan gulaanka barnaamijka maadaama tahay qof waaye araga oo tahriibta laftarkeeda maanta aan looga sheekaynay oo xanuunkeeda soo arkay ma ku ahan weyntahay inaad wacdiga dhalinyarada haday noqoto in goobaha waxbarasho loogu tago iyo goobaha kale ama social media laftarkiisa inaad ka wacyigeliso dhalinyarada tahriibta u helo walaal in badan waan ka wacyigeliyay qofkii aan arkay imka tahriib ka sheekeeyana waa ka naxabo ruuxa kaga naxa marka wax intii aan arkay aan tahriib marka aan maqlaan horta qalbigaygu aad ku waxyaabo badan oo dhibaato ayaan ka dareemaa marka sidaa darteed waxaan leeyahay dhalinyarta waddanka ka joogto war waddankiina aaminayna watiina nimca taala maxamed Saleebaan dintii iyo gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay halkan ayaad ka salaamaysaa marka koowaad walaal horta khadar adiga aad baan ku salaamayaa mar labaad waxaan salaamayaa hooyadii macallin Mariima Cabdilaahi Maxamed baan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa adeerka Caaqil Cabdiraxmaan Xaaji Cigaal asagana aad baan salaamayaa iyo Faadimo ayaan igana aad baan salaamayaa inta kale asxaabta magacayga iyo muuqaalka garanaysa igana aad baan salaamayaa waxaan kala si gaar ah u salaamayaa asxaabta Liibiya aan kaga imi iyo kuwa qurbaha jooga iyo kuwa nature jooga iyo kuwa dunida daafeeda meel kasta jooga iyagana aad baan salaamayaa waxaan saaxiibay magaciina jiro ugu dambeyn daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha naga mudan intaas waxaan ku soo afmeelinaa barnaamijkii gaarka ee aan la yeelanay maxamed Saleebaan Jaamac oo ku magac dheer guriga Samo oo kamid ah dhalinyarada waddankooda dib ugu soo laabtay isla markaasina tahriibay ee ka maqnaa waddanka muddo 2 sano iyo badh maxamed Saleebaan Jaamac oo ku maasantay waqtiga gaarka aad nasiisay iyo saad noo soo joogtay barnaamijka halka aad igala socotaan waa Khadar Xaaji Axmed bartaan ku leeyahay YouTube-ka kamarada quruxda badan iyo muuqaalka quruxda badan leh waxa gacan muhiim ka geystay saaxiibkay Gadari sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa barnaamijka qayb xal ka qaatay Bahda Gallery Production tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida dhamaantiin iyo dhamaanteed waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh